maanta ama caawaba aan dhahe waxa weeyaan halkan waxaan ku qabanay shir saxaafadeed ku saabsan qalab isugu jira lidka taangiga ama lidka gawaarida gaashaaman iyo ashyaada qaraxda oo aan ka soo qabanay ama laga helay deegaanka Qandala. waxaa jirtay bariyaha kan 2 bari ilaa 3 bari ka hor in degmada Qandala agagaarkeeda ay niman ajnabi ah oo caddaan ah iskuleeyna inay carab yihiin oo wataga saxiimad ay soo gaareen meeshaas Qandala dabadeedna ay tageen jaanka ka shisheeya magaalada halkaas oo ay ku aaseen alaab ay ku sideen alaabtaas waxay isugu jirtaa lidka taangiga ama lidka gawaarida gaashaaman iyo waxyaabaha qarxa oo nooc walba sidaan hadda hortiina ku aragtaan halkaas hawshaas waxaa qaybtii ugu muhiimsanayd ka qaatay runtii aan oran karaa ciidamada deegaanka sida booliska iyo maamulka degmada kadib markii arrintaa ay xaqiijiyeenna waxaa arrinka loo soo gudbiyey xarunta gobolka gudoomiyaha gobolka arrintaasna waxaa gacantii ugu muhiimsan hadda ka geystay gudoomiyaha gobolka oo hawlgalkaas runtii lagu hogaaminayay si wanaagsan nimadii xalay ku guulaysteen in ay helaan meeshii ay doontu dhigtay alaabta oo ah meel ka tirsan qooriga degmada magaalada Qandala dhow kiiloomitir ku jirta waxa ay ku xabaaleen meel aan xeebta ka fogeen alaabtii oo dhammaystiran bay gacanta ku dhigeen markaasay nala soo xiriireen howlgalka uu admiraalku ka hadlay Cabdishaaq waanu samaynay ciidanka ilaalada xeebaha Puntland baana howlgalka nagala qayb qaatay